kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Warlalis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar waxaanu markasta idinkugu soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya ee dalka iyo dibadda ka dhaca qodobada aad ku daawan doontaan maanta warkeenana waxaa ka mid ah dhaqaatiir u dhalatay wadanka Kuuba oo afduub ay u haysteen ururka Al-Shabaab muddo dhowr sano ah oo la sii daayay qarax ka dhacay meel ku dhow deegaanka Busra ee degmada Balcad xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hor yimid qodob ka mid ah heshiiska ay wada gaareen madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dad badan oo ku dhintay gaari bas ah oo lagu weeraray meel u dhow degmada Mandera golaha wasiirada Soomaaliya oo la filayo in goor dhow lagu dhawaaqo qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan Warlalis Media watahay daawadayaal qodobadaasi aan idiin sheegay oo faahfaahsan ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar aynu ku bilaabano dhaqaatiir u dhalatay wadanka Kuuba oo muddo ay afduub u haysteen ururka Al-Shabaab ayaa la sii daayay dhaqaatiirtan u dhalatay wadanka Kuuba oo laga soo afduubtay dalka Kenya ayaa laga sii daayay sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ururka Al-Shabaab ayaa laga sii daayay wararka ayaa waxa ay sheegayaan in la sii daayay dhaqaatiirtan kadib markii wada hadallo la yeeshay dadkii afduubka u haystay hase yeeshee lama sheegin ilaa iyo hadda halka lagu sii daayay dhaqaatiirtan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuuba Bernardo Rodriguez ayaa uga mahadceliyay dowladda Soomaaliya gacantii ay ka geysatay sii deynta labadan dhaqaatiir ee afduubka loo haystay labadan dhakhtar ayaa laga soo afduubtay magaalada Mandera bishii Abriil sanadkii 2019 macada in lacag madax furasho ah lagu bixiyay balse kooxda afduubka u geysatay dhaqaatiirtan ayaa horay afduub waxay ugu geysteen dad kale oo ajaanib ah oo lacag madax furasho ay ka qaateen labadan dhakhtar ee la sii daayay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Ezil Hera iyo Landi Rodriguez waxaana ay ka mid ahaayeen ilaa 100 dhaqaatiir ah oo u dhalatay wadanka Kuuba kuwaas oo ka howlgelaya wadanka Kenya waa markii labaad ee Al-Shabaab ay sii daayeen qof ajnabi ah oo ay soo afduubteen kana soo afduubteen dalka Kenya waxaana bartamihii bishii May ee sanadkii 2019 ay Al-Shabaab sii daayeen haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Sevilla Roma watahay daawadayaal Warlalis Media ayaa weli naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar watahay markan daawadayaal aan eegno qarax ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Busra ee degmada Balcad wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in qarax lala eegtay gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya qaraxa ayaa ahay nooca miinada dhulka lagu aaso gaarigan ayaa waxa la sheegay inay saarayeen ciidamada ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha degmada Balcad waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dhammaan askartii saareed gaariga miinada lagu qarxiyay ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay balse ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka degmada Balcad deegaanada dhinaca galbeed ka xiga magaalada Balcad ayaa waxaa ku sugan ururka Al-Shabaab ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu waxyeeleeyay halkaasi kuwaasi oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab inay ka dambeeyaan falalkaasi markana daawadayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen madaxdii ugu sareysay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka falceliyay heshiiskii madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada ee dhigayay in musharaxii doonaya inuu isu soo sharaxo xubinimada labada aqal ee baarlamaanka laga doonayo lacag dhan $10,000 iyo $20,000 xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in taasi ay la micno tahay qofkii aan lacagtaasi haysanin inuusan ka qayb gali karin siyaasadda dalka iyo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka uu yeelanayo musharaxna uusan noqon karin xasan sheekh oo wareysi siiyay telefishinka Somali Cable ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay horseedi doonto in qofkii dhaqaale aan haysanin uusan ka qayb gali karin siyaasadda dalka taasina ay tahay arrin aan la fahmi karin oo dowladda looga baahan yahay in ay qeexdo
aniga ma qabo in arrintaasi ay tahay wax fiican. Doorashadii hore annaga wax badan ayaa noo qabsoomay, in halkaasi la geeyana wax weyn ayay ahayd. Raalli kama aanan ahayn in lacag lagu xiro mar kasta. Markaad tiraahdo musharax walba oo wax dooranaya ama la dooranayo, waa markaad tiraahdo musharax la dooranayo waa in uu bixiyaa 20,000 oo doolarka Mareykanka ah si uu isku diiwaan geliyo. Micnaheedu waxa ay tahay nin kasta oo muwaadin ah oo 20,000 haysta oo aan 20,000 haysanin ma is sharxi karo, waxna ma noqon karo. Arrinkaasi ma ahan arrin sax ah, waxa kalifayana ma garan karno, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri dowladda ayaa laga rabaa inay dadka u sharaxdo muwaadinka xaquuqdiisana in lacag lagu xiro, ma ahan qofkii lacag haysta siyaasadda kama qayb geli karo. ay tani la micno tahay, mana ahan wax loo baahan yahay, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamayay in doorashadii hore ee dalka in aan 20,000 oo doolar aan lagu xirin musharaxa doonaya in uu xilka aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u tartamo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dad badan ay shuruudaasi ka reebi doonto inuu isku taago xilka golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ama golaha aqalka sare. watahay daawadayaal Warlalis Media ayaad naga daawanaysaan wali, fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar. markana golaha wasiirada Soomaaliya ayaa la filayaa in goor dhow lagu dhawaaqo. warar hoose oo laga helayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in mar aan fogeyn lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la sheegayaa inuu soo gabagabeeyay kulamadii uu la lahaa madaxda ugu sareysa ee dalka iyo la taliyaashiisa khaaska ah, kuwaasi oo ku saabsanaa sidii loo soo magacaabi lahaa golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirada lagu dhawaaqi doono ayaa isugu jira kuwa horey ugu jiray xukuumadii hore ee Xasan Cali Khayre uu hogaaminayay iyo kuwa haatan ku cusbaan doona xukuumadan uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaare Roble. watahay daawadayaal Warlalis Media ayaa weli naga daawanaysaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si markasta aad u heshid wararka dunida dacaladeeda ka dhaca gaar ahaan dalkeena Soomaaliya. markana dad badan ayaa ku dhintay gaari bas ah oo ku sii socday magaalada Nairobi. ilaa 8 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen, tiro kalena ay ku dhinteen kadib markii maleeshiyo loo maleynayo inay al-shabaab ka tirsan yihiin ay weerar ku qaadeen baabuur bas ah oo ka baxay magaalada Mandera kuna sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. gaarigan ayaa waxaa saaray dad shacab ah oo doonayay inay gaaraan magaalada Nairobi. ragga weerarka ku qaaday gaarigan ayaa gaarayay ilaa 8 qofood, kuwaasi oo lahaa astaamaha kooxda al-shabaab. dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ayaa loo qaaday degmada Ceelwaaq, halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. 4 ka mid ah dadka dhaawacyada ah ayaa la sheegay in xaaladooda ay aad u daran tahay. daawadayaal Warlalis Media ayaa naga daawanaysa. warkeena intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si mar kasta warka ugu horeeya aad noqoto qofka u hela.